guddiga kumeelgaarka ah ee doorashada Puntland ayaa goordhaweyd waxa ay ku dhawaaqeen musharaxiinta shuruudihii ay baarlamaanku hordhigeen buuxiyeen kuwaasoo doonaya inay u tartamaan jagada madaxtinimada Puntland. gudoomiyaha guddiga doorashada Puntland Saadiq Abshir Gadaad oo shir jaraa'id gelinkii dambe maanta ku qabtay ayaa waxa uu xusay inay shuruudihii buuxiyeen ilaa 11 musharax oo taagan inay u tartamaan jagada madaxweynaha Puntland halka ay buuxiyeen 10 musharax oo tartamaya jagada madaxweyne ku-xigeenka ay iyaguna shuruudihii buuxiyeen. musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha magacyada musharaxiinta 1 Cali Xaaji Warsame 2 Cabdiwali Maxamed Cali Gaas 3 علي عبد القادر يوسف 4 عبد الولي محمود قري 5 شريح حاجي فارح 6 محمود عبد الرحمن عوكي 7 جنرال عبد الله سعيد سمتن 6 محمد عبد النور حرسي 9 عبد محمد يوسف يي 8 علي عبد أواري كوبية 8 دكتور عبد الرحمن محمد محمود فراء هلقا waxa ku dhamaaday 11 musharax oo u tartamay jagada madaxweynaha. musharaxiinta madaxweyne ku-xigeenka u tartamaya waxay kala yihiin Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash 1 Cabdi Xakiin Cabdullaahi Xaaji Cumar Ami 2 3 Xuseen Xaashi Xasan 4 Jenaraal Cabdisamed Cali Shire 5 Cabdullaahi Cali Xirsi Timcade 6 Daayir Xaaji Khaliif Maxamed 7 Cabdirasaaq Maxamed Cumar Godane 8 دكتور محمد حرسي دعالي 9 انجنير محمود عيدي دير 10 عبد الله داهر محمود ليس كان magacyadu sida ay u kala horeeyaan waa sidii musharaxiintu ay u soo gudbiyeen codsiyadooda una soo kala horeeyeen laga bilaabo 4 galabnimo oo shalayto iyo 5 galabnimo oo maanta oo lagu dhawaaqay. intaan iyagu taagan inay u tartamaan jagada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ayaa maalinta bari ah waxa ay hoolka baarlamaanka tagi doonaan iyadoo khudbado kala gedisan halkaas ka jeedin doona ku saabsan waxa ay qaban doonaan iyo siifiyadooda. Maxamed Saciid Yuusuf, Home Cable TV, Garowe. golaha wakiilada Soomaaliland ayaa warbixin ka dhageystay wasiirka macdanta iyo tamarta Soomaaliland oo mudanayaasha goluhu ay kalfadhigoodii maanta ugu yeereen wasiirka